السلام عليكم أصحابي ومقالديني نحرستو أي كده هنتهي وليبا قيبتي استحاد حتى وإنت أنا مقال كوغلين وحان إذن كعد سنيا إن مقال كان ليكتيس أدقارتيسان كنت لايك إن شاء الله وإذن كسويا عن أسي قدقلنو مقال كينا نحرستو ووحو الله كوغلدي أدوميهيسا بل إيقنين كان سيدو استاغي خضارتان دادتي isagoo og in wax kasta ay qiimo ay ku fadhiyaan halka dadka kale ay u yimaadeen sidii ay u ururin lahaayeen khudaartaas iyagoona ka xaqay wadada waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan odeegan cajiib weey macnaa waa romantic markasta oo xaaskiisa ay timaado wuxuu ku tuurtaa taasiro qurux badan gabadhan ayaa u dabaaldegaysa xuska dhalashadeeda iyadoo dad badan ay ka soo qayb galeen waxay u muuqatay xaflad yar oo qurux badan balse wax yar ka bacdi waxay xafladii isku bedeshay mid dareen qurxoon leh kadib su'aal la weydiiyay gabadhan yar. What you wish for? Play with you. Oh man, damn. gabadhan darbijiifkaahi waxay cunto ka raadinaysaa qashinka iyadoona ka fiirinaysa wax xaraa cunto ah balse kama aysan helin waxay ka hinsta mooyee qofka duubaya ayaa dareenku siin waayay inuu sii daawado waxayna fureen albaabkii dabcan gabadhan ayaa ka soo baxday iyaguna ugu dambeyntii siiyey waxay cunto macalinkan wuxuu helay tigid uu ku soo daawanayo naadiga kubadda kolayga uu jecel yahay waxaana u keenay ardadiisa bal eeg shucuurtiisa bal eeg sarkaalkan booliskaahi siduu ciyaalkan uga dhigay maalintooda maalin qurxoon waxay go'aansatay inaysan kicin wiilkan dhallinyaradaahi ee ku hurdooday garabkeeda kaas oo daal badan u hayay dartiis uu ku seexday garabkeeda halka iyaduna ay tahay mid dareenkeedu yahay mid sareeya oo aan wax dhib ah ku qabin bal eeg faraskan gabadhan ayaa u xoqaysa dhabarkiisa halka isagana uu u xoqayo dhabarkeeda shucuurteedana ma ahan mid la soo koobi karo gabadhan ayaa awoogeed lama filaan uga dhigtay inuu mar dhow awoogeed noqon doono abkow marka hore ma uusan fahamsanayn sheekada ilaa gadaal looga sheegay arrinta bal eeg farxadda awoogan iyo qoyskaba ninkan ayaa ka soo badbaadiyay bisadan daadadkan aadka u balaaran kuwaas oo ka dhacay waddanka Pakistan bal eeg qaafka ay u korayso dushiisa halka dadka kalena ay yihiin kuwa faraxsan hooyadan ayaa wadnihii wiilkeedii oo 4 sano jir ahaa kaas oo geeriyoday ugu deeqday gabadhan yar bal eeg shucuurteeda gabadhan yar ee la dagaalamaysa cudurka kansarka ayaa la kulantay Roman Reigns kaas oo ay taageero u tahay Romana bedelkeeda wuxuu siiyay gloveskiisii isagoona farxad ka muujiyay arrintan bal eeg shucuurtiisa bal eeg ficilka quruxda badan ay ku dhaqaaqday cunugtan yar iyadoona dhagaha faraha ka saartay eegan si uusan u maqal codadka sare ee dabdamiska gaarigan dabdamiskaahi ayaa ku xayirnaaday wadadan balse dadkii goobta joogay ayaa hal mar gacanta saaray kuwaas oo ururiyay dhammaan alaabtii taale wadada gaarigiina si nabdoon ayuu wadada ku maray shaqo wacan cunugtan yar eeg waxay salaamaysaa qof kasta oo wadada ka soo horbaxa Soomaaliyay ciyaalkeena aan barno ixtiraamka dadka waaweyn intay dhagax tuuri lahaayeen aabo cajiib iga dheh aabahan ayaa barbar ordiya baskan uu saaran yahay cunigiisa isagoona u haadinaya gacanta naxariista loo sameeyay dadka waaweyn iyo xayawaanka way ka duwan tahay dadka kale gabadhan ayaa waxay caawimaad u fidinaysaa ninkan iyo eegiisaba iyadoona siisay waxay ku caawin kartay ninkan dhallinyaradaahi ayaa arkay eegan oo xaalad aan wanaagsaneyn ku jira dabcan waxaa ka muuqda haraad isagoona galay supermarketka soona gaday caagad biyo ah wuuna siiyey ninkan ayaa u gaday wiilkan gaariga curyaanada isagoona hore u watay ushaan wuxuuna ugu daray inuu fursiyo markiis ugu horeysay ninkan wuxuu qabtay shaqo cajiib ah ninkan dhallinyaradaahi ayaa sameeyay ficilkan sida inuu leeyahay walaalka ha ka xishoon qofta islaantan ayaa loo keenay hadiyad waxaana u keenay caruurteeda balse markay furtay waxa ka soo baxay bisad yar oo madow cajiib iga dheh wayna faraxday
walow nasiib ay u yeelatay bisadaas inay la noolaato salaantan 3 sano ay ugu dambeeyeen nolosheeda. odaygan 96 sano jirkaahi ayaa la soo taagay maxkamadda kadib markii uu ku waday gaariga xawaare aad u sareeya agaarka iskuulka, balse qaadiga ayaa waxba ku xukumin kadib markii uu ogaaday in odaygan cusbitaalka uu la cararayay wiilkiisii oo 63 sano jir ah kaas oo qabay cudurka kansarka. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing. gabadhan u dhalatay dalka Nigeria laguna magacaabo Bedel ayaa qosol la dhacday kadib markii uu ninkan uu hadiyad siiyay. muuqaalka ayaa noqday mid aad u faafay kadib markii ay gabadhan yar u suurtagal weeday inay kubadda ku rido shabaqa, balse walaalkeed ayaa laabta geliyay isagoona laabta u qaboojiyay kadibna kor ayuu qaaday si ay gool ku dhaliso. ugu dambeyntiina way dhalisay. halkaas iyo muuqaalkeena ku jooga waa inooyo content like. haddii aad nooc cusub tahayna fadlan nagu soo biir. wabillahi tawfiiq.